بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعبد الناصر يوسف حاجي جنرال كاد naga daawanaysaan waa Gugac Media ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan maanta uga hadli doono aqoon u yeelo cudurrada lagu daweeyo guurka iyo astaamaha lagu ogaado in wiilka ama gabadha ay diyaar u tahay isla markaana ay u xanuunsan tahay guur. هذا هو موضوع حساسي داوشة وعن تجري دموع اليتم في خدي وحاجرة dhalinyaro badan oo dhaqaatiir u raadsada daawo iyagoo ka cabanaya arrimo lagu xalin karo guurka sida darteedna ay dhaqaatiirta qaar kula taliyaan in qofkaasi uu guursado taasoo keeni karta in dhakhtarka qalad loo fahmo mararka qaar guurka oo soo daaha ama qofka u suuroobi waayo waxa laga dhaxlaa cilado badan oo rag iyo dumarba ku dhaca haba u sii badnaadaan dumarka sidoo Allah subhanahu wa ta'ala ku sheegay quraankiisa suulkeenuna uu inoo cadeeyay guurka waa shay muhiim u ah nolosha bini'aadamka wuxuuna isbedel jir iyo nafsi ahaanba ku sameeyaa qofka waxaana laga helaa deganaanshiyo galgacal iyo naxariis qofka ku abuuranto كالماسي كالدر الثمين wuxuu kaga badbaadaa fikirka kalinimada iyo kacsanaanta niyada sida darteed rasuulkeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu dhalinyarada kula taliyay in ay guursadaan hadiiba ay awoodaan taasi waxay tilmaan u tahay in qofka bini'aadanka uusan guur ka maarmi karin faa'iidooyin badanna laga dhaxlo xanuuno badanna looga hortago kuwaasoo mar dhow caalamku ogaaday waxaana kamid ah فعل الجميل وزادها التقوى isku buuqa badan markuu qofka bini'aadamka diyaar u noqdo guur waxa isbedel ku dhaca qanjiro badan oo jirka ku yaala kuwaasoo soo daaya dheecaano iyo hormoono hooshooda qaabilsan tahay taranka hormoonadaas waxay saameyn ku leeyihiin qaybo badan oo jirka ka mid ah sida maskaxda oo kale taasi waxay isbedel ku samaysaa dabciga qofka wuxuuna la soo bixi karaa astaamo aanan horay loogu aqoon jirin sida kacsanaanta niyada isku buuqa xanaaqa badan qofka oo hadalka iyo sheekada dhibsada oo qoyska ka dhaxbaxo dagaal iyo amar diido aanan horay loogu aqoon iyo cabasho joogto ah oo aan xal loo heli karin cabashooyinkaas badana waxaa lagu qaldaa xanuunka allergiga sida samboorka cuna xanuunka waxaa kaloo lagu qaldaa xanuunka lafaha ku dhaca qofka haduusan fursad u helin guur wuxuu la imaan karaa waxyaabo badan oo isla hadal iyo isku dhaxyaac ah taas oo qofka lagu arki karo astaamo tilmaan u ah cadaadiska maskaxda saaran sida isa suuxin iyo dhicitaan oo ehelka iyo qaraabada u saariyaan cilado kale laakiin dhaqaatiirtu ay u yaqaanaan hysteria wiilasha badankooda way sheegtaan dareenkooda wayna codsadaan inay guur u baahan yihiin laakiin bulshadeenu dhaqan uma laha in ay gabdho ka sheekayso dareenkeeda ama ay waalidkeeda xitaa kala hadasho taas ayaa keenayso in gabdhuhu u bataan dadka arrintan ay saameynta weyn ku leedahay caabuqa qanjirka ragga ee prostate waa cilad kale oo xalkeedu yahay guur waxaana lagu arkaa ragga kaliya waxaana astaamaheeda ka mid ah dhabar xanuun xiniinyo xanuun shahwo timaado marka qofka saxaroonayo kaadida oo dhib noqoto ama xanuun wadato markii baaritaan lagu sameeyayna wax cilada laga waayo arrintan lagu arkaa dhalinyarada badanaa aan aqoon waxa loo yaqaano timnaaga waxayna ka timaadaa qanjirka ragga oo caburmo wuxuu kaloo guurka yareeyaa jaaniska kansarka ku dhaca qanjirka borseetada
ugaxan-sidaha fiixda leh waa cillad ku dhacda haweenka oo ah in ugaxan-sidaha ay ka soo baxaan fiixyo badan. Dadka lagu arko calaamadahan waxaa badanaa lagula tacaalaa daawooyin, laakiin waxaa la arkay in guurka oo loo dedejiyo ay xal u tahay. weliba in haweentu ay uur qaado way u baaba'aan badanaa fiixyadaasi. marka ka hortag iyo daawo labaduba waa uu yahay, waana cillad ay haween badan ku wareersan yihiin. آلم وفقر حاله ودموع. kansarka dhaxalka ah waxay cilmi-baarayaashu sheegeen in haweenta oo dhaqso guursato horeyna uur ka qaado carruurteedana nuujiso waqti fiican ay ka badbaado kansarka naasaha ku dhaco ee dhaxal ahaanta qoyskeedu u leeyihiin. baynamaa isla gabadhaasi hadday guurka ka daahdo ama isticmaasho daawooyinka uurka looga hortago in xanuunka uu ku soo degdegi karo. aana arrin hadda lagula taliyo qoysaska reer galbeedka ee cilladahaasi dhaxalka u leh. difaaca jirka guurku wuxuu isbeddel ku sameeyaa nafsiyaadka lamaanayaasha ama lamaanaha, wuxuuna sare u qaadaa difaaca jirka. sidaas darteed waxaa la arkay inay badanaa dadka isqaba aysan ku badnayn xanuunada ka dhasho difaac yarida sida hargabka iyo ifilada. ka hortagga balwadda waqti hore oo la guursado wuxuu hortag u yahay caadooyinka xunxun oo ay dhalinyaradu bartaan iyagoo ka raadinayo nafis iyo madadaalo sida istimnaaga, gaar cabista, qayilaada iyo wixii la mid ah. sababtoo ah guurku wuxuu wataa mas-uuliyad ku kalifaysa lamaanaha cusub inay nolol iyo mustaqbalkooda ka fekeraan inta ay u jeesaan lahaayeen waxyaabo aan faa'iido iyo caafimaad toona u lahayn. haddaba waxaa warbixintaasi idiin soo gudbinayay anigoo cabdinaasir ah. janalka aad naga daawanaysana waa Gugac Media. haddaba haddii aad nagu cusub tahay saar subscribe, like iyo share. haddaba waxaa inoo balannaa barnaamijkiisa xiga. waa sidaas iyo nabadgelyo. متلألئا يبدو على شفتيه